raadinta cilmigu waa mid ka mid ah qiyamka insaaniga ah sidoo kale islaamiga ah diinteennu waxay nagu boorisay inuu si joogto ah daba joogno aqoonta dadaalna ku bixino fahamkeeda aqoontu waa iftiinka inoo iftiiminaya dowgeena nolosha waana hubka aynu kaga hortagayno aqoon darrada iyo dib u dhacaba qofka cilmiga raadinaya waa qof si joogto ah dadaal ugu jira helida aqoonta iyo horumarinta naftiisa maraan ku leeyahay naftiisana kama wado in waxa qura ee wax u baranaya ay tahay dheef aqooneed ama manfaco shakhsi ah balse waa inuu mustaqbalka noqdo dar loogu yimaado intuu cilmiga xasiliyay dadaalkaas waxa mataanaya istuudhig jeclaanshaha dhabta ee xaqiiqada inuu markasta u hanqaltaagay u gaajoonaay u maman yahay inuu cilmi kala helo gabyaagu weyn Axmed Shawqina isagoo ka hadlaya oo tilmaamaya sida uu cilmigu u sharfo qofka xataa dad qofkaasi uu bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba u liito iyo sida uu jahligu u dhantaalay qiimaha iyo sharafta qofka ayaa waxa uu leeyahay al-ilmu yarfa'u baytan la imaada lahu wal-jahlu yahdimu bayta al-'izzi wash-sharafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqosho wanaagsan waxa muuqaalkan aan kaga hadloonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo looga baahan yahay qof kasta oo muslim ah soo kalena arday ah maadaama sidaan ka hadlaysa cilmiga ardayda waxaan sidoo ka kulnaa doontaa dhowr muuqaal oo ka hadli doona sidee wax loo akhristaa wax loo fahmaa sidoo kale wax loo xifdiyaa waxa oran karaa waa muuqaalo ay haboon tahay inay gaadhaan qof kasta oo arday ah waxaan isku day doonaa inaan qodob kasta si kooban uga hadlo balse ka hor intaan qodobada gelin waxaan ka codsanay fadlan haddii aad cusub tahay inaad kanaalka subscribe tiraahdo sidoo kale si muuqaaladan ay u gaaraan dad badan oo akhyaar ah sidoo kale inaad like garayso barnaamijka qodob koobaad waa ducada ducadu waa dhuuxa cibaadada waxay kuu furaysaa wax kaa xidhnaa waxay kuu soo dhaweynaysaa wax kaa fogaa waxay kuu soo ururinaysaa wax kaa kala daadsanaa intaasoo qura maaha sidoo kale waxay kuu fududaynaysaa wax kugu adkaa ducadana waa mid ka mid ah waxyaabaha ay culimmadu kula dardaaranto ardayda ama dadka cilmi raadiska ah waxaana jira kutub dhan oo laga qoray ducada iyo siraheeda imaam shaafiicina waa ka oran jiray maaniltu hada al-ilma illa bil istighfar wa du'a ugu dambeyntii ducada markaan ka hadlayno waxaad ogsoonaysaa ducadu inay tahay jid aad qawi u ah oo saameynaya guushaada iyo habkaad wax u raadinaysaba waa suurad ama muuqaal aad ka dhaxal karto tala saarashada Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saaranayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u bandhigan tahay aad weydiisanayso yacni kaalmadiisa iyo taageeradiisaba soo kale ducadu waxay kordhisaa barakada waqtiga iyo juhdiga aad bixinaysaba waxaanay ku siinaysaa raaxo nafsi ah taasoo ay qaadanaysa in si qoto dheer u fahanto waxaad baranayso iyo sababtaad u baranaysaba qodobka xiga ka fogaanshiyaha xumaantu waa sida silsilada oo kale waana deer adigu dhisayso oo ka hortaagan xasilinta wanaag kasta qofka ardayga ahina waa inuu ahaadaa midka ugu dadaalka badan ka tigista xumaanta iyo ka fogaanshiyaheedaba cali ibn khashram ayaa wuxuu leeyahay Ilaahay u naxariistay waxaan ka wakiic ibn jarraax وأنا كتاب وحكو قرأ سيدن وحنوها مد حفظين كبضن انت وحفظنه كدب أرنكا ساني والله يابن أيام ويدي وكيعو بوق مسيتد مدونا عدانكم وقرت يعني قلني ورقس مدو سارتد وحانا حفظ سنتي وحكبضن وحانا حفظ سنة هاي امحاك وقرصون وحيسر تاوت هاي كدب انتو يسود ودا يقول يري هدي أنكو تسوسيو دولة إلوشيها مدقن قلنيسا كدب أيام كو يري ها والله مدقن قلنيا مركز يقول يري وحمانتا ولغتو isagoo halkiisii watan wuxuu yiri Ilaahay baan ku dhaartay wax xifdi ugu wanaagsan xumaanta laga tago ma arag waxaa jirta qisa caan oo dhexmartay Imaam Shaafici iyo Wakiic maadaama ka mid ah shuyuukhdiisa Imaam Shaafici ayaa u yimi Wakiic soo ka cabanaya in xifdigiisu aad hoos ugu dhacay marka loo bardhigo sida hore xifdigiisu ahaa kadib Wakiic ayaa ku yiri waxa laga yaabaa inaad gafum samaysay ama khalad aad gashay kadib Imaam Shaafici maskaxiisu dib ugu laabtay soo baaraya bal wax gafa uu galay waxaan xasuustay in mar ishu ay kaga dhacday gabadh faras fuulaysa oo yani marada ay ka feeyntay dhunkeeda marka yani si aan ka sahayn ishiisa ay qabatay kadib uu la wadaagay sheekhi marka waa kii tirinay labadii bayda caanka shakootu ila wakiicin soo xifdi فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى او لا يؤتى لعاص qodobka xiga akhrinta nololeedka culimadii hore qodobka mid kamid ah qodobada ugu muhiimsan oo iska xariiqo wada dhugato sooyaalka culimadii hore marka laga waramayo sooyaalkooda waa adag tahay in maskaxda rumaysan badan kamid ah in badan oo la beenin lahaa haddii aan culimada waqtigaas uga marxaati ka ilahayn ama aan sanad lagu soo warin lahayn balan kaga sheego dhowr qiso oo la yaab leh oo ka soo qaatay kutubta ka waranta arrimahaas Ibn Abi Hatim ayaa wuxuu leeyahay waxaan ku sugnay Masar 7 bilood ma aanan cunin wax dufan leh suurayso 7 bilood ma aanan cunin wax dufan leh maalinka oo dhan waxaan ku wareegi jirnay xalaqaadka shuyuukhda maalinka oo dhan waxaan ku jirnay xasilinta cilmiga
habeenkii baa ku yimi habeenkiina waanu soo nimaadnaa kadib waxaanu ka niqaashnaa oo xifdinaa wixii aanu soo helnay maalinka cilmi ah ilaa ay timi maalinkaas waxaan loo sheegay in sheekh ka mid ah shuyuukhda xalaqaadka uu xanuunsanayo waxaana aragnay inay fursad tahay aan ku raadin karno hilib waxaan soo dhex marnay suuqa waxaan aragnay kalluun fresh ah oo nacajibi kadib aan soo qaadanay soo iibsanay marka guriga nimi waxaan aragnay in waqti ka mid ah yani xalaqad ka mid ah waqtigeedii soo galay kadib alaabta halkii baan dhignay oo waanu baxnay wuxuu ku leeyahay ma suuraysanaysaa 3 cisho kale ayuu kalluunkii meeshii yaalay ilaa heer uu jirsaday yani inuu qurmo oo soo uro markii waxaan ku qasbanaa inaan shiilo maadaama aanan karin oo uu sameeyay tusaalehna labaad cajiibka ahi waa Cabdiraxmaan ibn Qaasim intaan tusaalisa u galin waa mid kamid ah culimada ugu waaweyn madhabka Maalikiga adigu suurayso qof 20 sano joogay Maalik ibn Anas hadaba tusaalisa haddaan u laabano isaga laftiisa ka hadlaaya waxa uu leeyahay 17 sano ayaan ag joogay oo ag deganaa Maalik ibn Anas yani waxaan u ag joogay wax kala maaha waana cilmiga ka qaato 17 sano wax kala maan qabanin kaliya cilmigu ma ka dalbay isaga culimadii ka dhaway wuxuu ku leeyahay xaalka ku sugan maalin maalmaha kamid waxaan soo booqday noo yimi dadkii ka soo xajay Masar maadaama soo reer Masar ah oo Masar ka yimi Masarna ku dhintay wuxuu leeyahay waxa noo yimi dadka Masar ka soo xajay iyagoo yani sheekha u socdo sheekhayna salaaman doonaya dadkii markay salaameen sheekhi waxa ku dhex jira nin dhalinyaro ah ninkii dhalinyarada markuu sheekhi salaamay ayuu ugu soo jeestay wuxuu yiri ma idinku dhex jiraan Ibn Qaasim anigu meesha fadhiya kadib wuxuu la soo tilmaamay wuxuu yiri soo socday labada indhood bay ka dhukaday waa ninkii dhalinyarada ah wuxuu yiri waxa arkay yani ur la yaab leh oo ka soo horeysay yani ur aad u udgoon yani ur aan sifayn karin wuxuu ku leeyahay urtaasi waa urta dhalaanka yani qofka dhukanaya ninka dhalinyarada dhukanaya waa inankaygiiba anigu waan garanaayo isaguna garanaayo iminka la tilmaamo hadaba seen yani xukumin Ibn Qaasim wuxuu leeyahay Ibn Qaasim wuxuu ka tagay inankayada hooyadiisido markii yani ka soo baxay gabadhiisuna waxay ahayd yani naadirtii bay ahayd marka wuxuu kala dooransiiyay isagoo u sheegay yani in safarkiisu dheeraan doono oo muddo dheer uu ag joogi doono Maalik ibn Anas oo cilmi u bixi doono wuxuu kala dooransiiyay inay raacdo oo yani meesha la tagto inay halkan la degto yani reerka la deganaato waxay dooratay inay reerka la deganaato qodobka xiga nidaaminta waqtigaaga inaad waqtigaaga nidaamiso oo ilaaliso waa mid kamid ah sababaha ugu waaweyn ee ku suurtagelay inaad aqoon badan xasiliso ardaygan waxa laga rabaa inuu bakhiil ku noqdo bixinta waqtigiisa adigu naftaada la sheekayso oo weydii waqti intee lagaayad ku bixisaa waxaan macna lahayn sida maqaaxiyaha fadhigu dararka ah iyo ka sheekaynta waxaan dani kugu jirin ama cid kuu dirsatay oo kuu ogey aanay jirin salafkii hore waxay odhan jireen haddii waa cusub noo bariyo oo aanan cilmi kororsan maalinkana lama barakayn waxaa la sheegaa in Caamir ibn Qays uu ninku yiri ii waran soo uga jeeda soo fadhiisan wada sheekaysanne mad garanaysaa wuxuu ku jawaabay qorraxda joojaan kula hadlay maana aha inuu iskibrinayo iskala weeyay inuu qofka la fadhiisto la sheekaysto balse waa qof dareensa qiimaha sikan kasta ilbiriqsi kasta leeyahay waqtigeenu waa badan yahay balse nidaamintiisa ayaynu aad ugu liidanaa qodobka xiga ku celcelinta waxaad baratay sababta artiga looga baahan yahay qodobkani waa in wixii lagu celceliyo ay xasuusta muddada dheer ee maskaxdeena galayaan waxa jirta war aad cajiib u ah oo culimadu tiraahdo inayuhu ma soo baxaan ilaa si joogto ah loo waraabiyo yani ma dhalayaan ilaa si joogto ah loo waraabiyo cilmigu waa saas oo kale ilaa lagu celceliyo oo la muraajaceeyo oo la xifdiyo oo laga niqaasho mooyaane waxaase cilmi maaha ma noqonayo cilmi dhala Imaam Shaafici ayaa xoorin jiray 40 jeer ayaa akhriya kitaabka raba inaan si buuxda u fahmo kitaabkan doonaya inaan dhuuxiisa fahmo 40 jeer ayaan ku celceliyaa inaad cilmiga la noolaato wuxuu ka caawinaa inaad ku celceliso iyo dhaqan geliso qodobka xiga mahadnaq ilaahay ku suurtageliyay inaad arday noqoto cilmiga raadiso waayo fursad aad u qaali ah fursad dahabi ah aanay maanta dad badan haysan mahadnaq cidii kale ka caawisay inaad cilmiga hesho ama ilaa hada ka caawinaysa raadinta cilmiga oo ugu horeeyaan waalidka iyo macallimiintaaduba mahadnaq saaxiibkaaga ama saaxiibtaada wax ku faa'iideeyay ama wax ku faa'iideysay waa ballan ilaahay inoo qaada in haddii aynu nimcooyinkiisa ugu mahadnaqno inuu noo sii kordhin doono qabyaagina waa kii lahaa idaa afaadaka insaanu bifaa'idatin min alculuumi fadmi shukrahu abada waqul fulaanu jazaahu allahu saalixatan afaadaniiha wa alqi alkibara walxasada qodobka u dambeeya akhrinta quraanka waa qodob muhiim ah sababtan ugu dambeysayna waa inuu maskaxdeena ku sii waaro waa arin in badan oo ardayda kamid ah aanay ku baraarugsaneyn waxaan xaqiiqaa in akhrinta quraanku ay kordhinayso xiisaad u haysa raadinta cilmiga marka laga yimaado inuu cibaado yahay ku
kuna kordhinaya jacaylka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa jira dardana aad cajiib u ah oo al-Imaam Ibraahim al-Maqdisi uu siiyay ardaygiisa Cabbaas ibn Cabdidaayim Ilaahay labadooda ha u naxariistay ayaa wuxuu leeyahay farabada akhrinta quraanka akhriyayso waligaana ka tagin sababta markastaad badisa akhrintiisa oo markastoo ku fudaado cilmiga kala wado iyo waxa kala akhriyayso Cabbaas ayaa wuxuu leeyahay soo ka warramay dardaaranka macalinkiisa sheekhiisa arinkan waan arkay waan tijaabiyin farabadan waxa ahaa markaan akhriyo in badan yani quraanka marka in badan ka akhriyo waxaan ahaa mid uu fudaado dhageysiga culumta kale iyo qoristooduba saasoo kale waxa ahaa mid haddii uu ka gaabiyo akhrinta quraanka aanay u fududaan hawlaha kaliya cilmiga kala wado